وهاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارت شرفت الله halkan waxaan ku lafagubaynaa oo aan ku sameynaynaa jadwal heer sare ah advanced level ah kaasoo aan ugu talagalnay kambaniyasha academics sida universities iyo organizationada inay ku controlaan staffkooda shiftiyadooda dhammaan agabka looga baahan yahay anagoo aan ku diyaarinayno from 0 to A ama meesha ugu hooseysa ilaa iyo meesha ugu sareysa waxaana ku diyaarinaynaa database-ka ama spreadsheet-ka la yiraahdo Excel la socdo wanaagsan aniga computerkii waan ku dhex jiraa waxaan rabaa inaan soo kiciyo Excel spreadsheet marka waxaan tagay start menu Excel baan ku qorayaa wixii soo baxay waxaan isticmaalayaa Excel modelka waxaan isticmaalayaa 2016 sida caadiga ah ugu soo kacaya waxaan dooranayaa blank workbook baan ku dhufanayaa waka saas ugu soo kacay talaabada koowaad intaanan jadwalka aan sameyn maxaa weeye hadda koor waan idin sheegay buugii ka horeeyay markaan sameynaynay wordka talaabada koowaad qabanayso waxa weeye inaad magac u bixiso inaad waxa weeye aad shaqadaada magac u bixiso waxa weeye oo aad save garaysid waxaan leeyahay save waxaan aadayaa desktopka markaan aado waxaan dooranayaa waxa weeye maxay ahayd khaanadihii ii yaalay jadwal waa kana tanaan ku dooranayaa kadib waxaan u bixinayaa magac aan u qorshaysto inaan ula baxo waxaan leeyahay then shaqada koowaad oo aan rabo inaan qoro waxa weeye kambaniga magaciisa inaan qoro aan diyaariyo kambaniga magaciisa kambaniga waxaa la yiraahdaa kambaniga magaciisii waan qoray kadib waxaan diyaarinayaa waxa weeye in aan sameeyo waxa weeye shaqaalihii magacyadoodii halkaanaan imaanayaa waxaan leeyahay magaca shaqaale oo dhammaystiran halkaan waxaan ku qorayaa waxa weeye maalinta ugu horeysa bil walba maadaama jadwalkeena uu ku fadhiyo ama beeskiisa uu yahay bille waxay maanta horeysa waa taariikh ahaan maalinta ugu horeysa bisha waxay ka bilaabataa 1 let's see intaa markaan dhana biluhu waa kala duwan yihiin bisha hadda anagu aan diyaarinayno waxaan ka dhigaynaa inay tahay for example September baan ka dhigaynaa inay tahay kan kambaniga magaciisii baan ku qoray waxaan leeyahay jadwal September dan waxaan tagayaa taariikhdii waan hubinayaa maalinta ay ka bilaabato September waxay ka bilaabataa maalin khamiis ah marka meeshaas waxaan ku bedelayaa khamiis waan ku fariisinayaa marka 30 maalmood waa hagaag kadib waan hagaajinayaa waan qurxinayaa farta waxaan ka dhigayaa far la akhrin kara dhow marka la daabaco yar baan ku dirayaa kadib sidoo kale tan waan hagaajinayaa taariikhda 30 maalmood sidoo kale ayadan waxaan ka dhigayaa taariikh qurux badan oo la akhrin karo marka la daabaco sidoo kale kana sidoo kale magaca waan hagaajinayaa waxaan ka dhigayaa magaca la akhrin karo marka la daabaco oo qurux badan then magacyadii waan soo gelinayaa anu magacyada way ii diyaarsanaayeen automatically waan soo gelinayaa ilaa iyo 10 magac kadib waxaan soo qaadanayaa maalmaha ay soo gali lahaayeen shaqaalahan meesha ku qoran
saddexda waqti oo la shaqeeyo soo koobi garaysanaya meel rafaan ku diyaarsaday dan hagaag uu noo fadhiyaa marka waxa weeye qof walba maalintuu soo geli lahaa way fadhidaa 30 beri halkaa maalin baan iska tiriyaa maadaama bishii ku dhamaanayso 30 maalmood bishan September oo bilaaban doonta halkan waxaan ku haysanaa waxa weeye kambaniga magaciisa waxaan ku haysanaa taariikhda ama waxa weeye taariikhda jadwalka halkan waxaan ku haysanaa waxa weeye maalmihii halkan waxaan ku haysanaa taariikhdii bisha ka bilaabanaysa bisha 30 beri bay ku dhamaanaysaa ma waxa weeye maxay ahayd waxay ku dhamaanaysaa wax la yiraahdo maxay ahayd 31 beri halkan waxaan ku haysanaa magacyadii shaqaalaha dhamaantood kadib waan yara qurxinayaa waxaan soo gelinayaa border kana sidoo kale alright mana ka dambeyso uu soo qurux badnaanayaa waan save gareynayaa in case uu waxa weeye korog ugu dhaco waxa la yiraahdo crash computerka mar walba oo aad wax yara update aad ku sameysid waxa aad ka shaqeynaysid xeerka computerka waxa weeye inaad save tiraahdaa ama control s tiraahdaa kan waa isku soo yara dhaweynayaa waxaan sameynayaa wax la yiraahdo columns-ka oo dhan baan highlight gareynayaa kadib baa mid kamid ah waxaan leeyahay double click automatically waa isku soo dhawooday kana sidoo kale maadaama fartaan ay dhibayso kana keenaya waxa hagaajinaya maadaama fartaan dheer kambaniga sadarteed buu ugu baneeyay kor waxaan leeyahay dhib malahan waa caadi kana ka dujinaya waan leeyahay marka okay halkan waxaan haysanaa wax haysan sheegay number 1 waxaan haysanaa taariikhdii bisha waxaan haysanaa waxa way bisha maalintii ka bilaabanaysa ilaa maalintii ku dhamaanayso waxaan haysanaa kambaniga magaciisa waxaan haysanaa wax la yiraahdo taariikhda jadwalka waxaan haysanaa shaqaalihi magacyadooda good waxaan u haray waxa way very important waxa way jadwalka inteed waqti buu shaqeynayaa ma subax buu shaqeynayaa ma galab buu shaqeynayaa mise saddex waqti buu shaqeynayaa oo meeshu waa meel laga shaqeeyo hal gelin kambanigu waa kambani laga shaqeeyo laba gelin kambani waa kambani laga shaqeeyo saddex gelin aan tusaale ahaan qaadana midka ugu dambeeya for example oo kale saddex gelin okay waxaan qoranayaa waxa weeye halkan waxaan qoranayaa marka koowaad waxa weeye info baan leeyahay macnaheedu waxay tahay informationka waxaan leeyahay waxa weeye oo waxay la mid tahay of ama Soomaali ahaan waxa way fasax okay ومعناheedu yahay qofka maalin fasaxa buu ku jiraa ama maalin fasaxa bay ugu soo aaday maalin hiblaayo waxaan qoranaa waxa weeye ma ama m oo la mid ah morning ومعناheedu yahay subax qofka waxaa leeyahay subax uu soo galay waxaan wixii waxa weeye n oo la mid ah night macnaheedu uu yahay waxa weeye Soomaali ahaan habeen qofka waxaan leenahay habeen uu soo galay oo macnaheedu waxa weeye evening waxaan leenahay qofka galabkii uu soo galay duurkii ilaa iyo fiidkii uu ku jiray waxaan leenahay marka fiidkii okay sidoo kale waxa very important oo ay muhiim tahay inaan ku darno waxa la yiraahdo AL oo macnaheedu yahay fasax bileed fasax caadi ah ama fasax bileed ama fasax kale oo waxa weeye qofka basihiisa u qorsheysnaa bisha inuu qaatay oo kale taasay ka turjumaysaa marka aan qorno qof intaas waxa weeye waa meeshii aan kala socon lahayn jadwalkan aan soo gaagaabsanay fahankiisii weeye jadwalkan halka aan ku soo gaagaabsanay xarfaha ku qoran waxa ay ula jeedaan waa in halkan ku cadeysaan sidoo kale waxa very important ah in halkan aan ku cadeyno sidoo kale waxa la yiraahdo saacadaha shaqada aan dhahno halkan waxaan ku qoraynaa
good. Kan saacadaha shaqadan ku qornay. Waxaan leenahay marka waa yahay maxaa la rabaa in la shaqeeyo. Waxaa la shaqeynayaa maalintii maxay ka kooban tahay 24 saacadood bay ka kooban tahay maalintii. Intaas waa isla fahanna dhammaanteen. Okay, markaan hagaajisto waxaan leenahay 24 saacadood waxaan u kala jebinay 3 baan u kala jebinay 24 saacadood. Great. Okay, 3 xilli baan u kala jebinay. waxaan leenahay marka waa yahay 24 saacadan 3 u qaybino maxay noqon kartaa waxa ugu dhow waxa weeye inaan halkan ku cadeeno waxa weeye anana subax morning ama subax waxay soo galayaan waxay macnaheedu ay tahay xilliga shaqada saacadaha shaqada waxaan leenahay waxa weeye maxaa weeye waxaan leenahay waa 6 saacadood halkan waxay u haysaa 6 saacadood halkan ay dhig marka waxaan leenahay halkan waxa weeye habeen ama night saacadaha shaqadu waa maxay asagana waxaan leenahay oo soo laabanayna habeenkii waxaan qorinaa wax la yiraahdo waxa weeye evening macnaheedu yahay fiidkii ilaa iyo fiidkii waxaan leenahay waxay shaqeynayaa qofkaas ama shaqaalahaas 6 saacadood safgaraniya marka halkan waxay u haysaa waxa weeye 20 waxaan ka wadaa maxay markaas ku dara macnaheedu waxay noqonaysaa 12 so marka waxaan leenahay waxa la yiraahdo 12 saacadood oo laga jaray 24 saacadood maxaa soo haray marka waxaa soo haraysa 12 saacadood dib ma oran karna marka qofkan shiftigii buu dhamaaday ama saacadii oo dhan qofkan soo galay maadaama 3 waqti aan u kala jebinay way dhamaatay marka maxaa soo hartay 12 saacadood waxaan leenahay 12 saacadood okay halkaasna waa faahfaahintii waqtigii saacadii la shaqeynayay qayb walba okay halka ay wacde waxa taa wax la yiraahdo inaan cadeeno ayadana ay very important ee tahay waxa weeye inaan ku horkorno halkan andana waxa weeye morning wuxuu shaqeynaya 6 hours andana night wuxuu shaqeynaya 12 hours andana maxay evening wuxuu shaqeynaya 6 hours evening wuxuu shaqeynaya 6 hours great halkaasna si fiican baan ugu qeexnay saacadiina si fiican baan ugu qeexnaysa qayb walba waqtiga la shaqeynayo ama hadday noqoto subax ama hadday noqoto habeen okay jadwalkeeni hadhow waan dib u formaat gareyn doonaa oo hagaajin doonaa halkan waxaan rabnaa inaan kusoo qorno waxa weeye si aan u kala qeexno qofkan inta maalmood uu shaqeeyay subax inta maalmood uu shaqeeyay habeen inta maalmood uu shaqeeyay wax la yiraahdo galabkii ilaa iyo fiidkii uu soo galay inta maalmood uu galabkii duurkii uu soo galay ilaa iyo fiidkii uu shaqeynay okay waxaan sameynayaa marka waxaan sameynayaa waxa weeye halkan waxaan ku qorayaa waxa weeye saacadaha subax okay waan yara hagaajinayaa great saacadaha subax uu shaqeeyay kan sidoo kale waxaan ku qorayaa saacadaha uu shaqeeyay evening halkan sidoo kale waxaan ku qorayaa waxa weeye saacadaha uu shaqeeyay habeenkii great halkan waan ku haystaa marka waan yara hagaajisanayaa waxaan waxa weeye aan rabaa inaan ogaado qofkan hadda waxa ugu horeeya hadda waa shakhsiga la yiraahdo Jama
waxaan leenahay jaamac inaan ogaano waxaas oo waxa weeye eraya waxay ka turjumayaan maalmihii uu shaqeynayay iyo waxa uu ku shaqeynaya ama category uu ku shaqeynaya ama qaabka uu shaqeynaya muxuu shaqeynaya habeen muxuu shaqeynaya subax fasax buu ahaa mise wuxuu ahaa wax la yiraahdo maxay ahayd mise wuxuu ahaa wafkaan hore waxaan leenahay marka waxaan leenahay jaamac baa ugu horeeya marka hore waa inaan ogaanaa excelka wuxuu ku shaqeeyaa wax la yiraahdo column iyo wuxuu ku shaqeeyaa wax la yiraahdo row iyo wuxuu ku shaqeeyaa wax la yiraahdo cell rectangle-kan hadda ii dooran ii select gareysan macnaheedu waxa weeye rectangle-kan oo kale macnaheedu waxa waa cell row-gan dheerarka ah macnaheedu waxa weeye waa row column-kana saas buu taagan yahay marka waxaan leenahay qofkan jaamac cali xagee buu ku jira column-kee uu ku jira row-gee uu ku jira cell-kee uu ku jira waxaan leenahay horta jaamac wuxuu ku jira column-ka C waan soo helnay wuxuu kaga jiraa row-ga number 5 waa kuwa row-yada number-dooda iyo xagana ku saxin automatic cell-ka uga jirana waxa weeye row-ga number 5 buu uga jiraa column-ka C okay marka aan raadina inta maalmood uu shaqeeyay subax waxaan leenahay equal qaacidadaas baan isticmaalaynaa shaashadan kusoo qorayaa waxaan count if then waxaan raadinayaa column-ka muxuu ahaa C waxa weeye row 5 haka automatic asaga raadsanay row-ga buu raadsanayaa column-ka row-ga ku jira row-giisa okay waxaan leeyahay ilaa laga gaaray column-ka ugu dambeeya qofkan uu shaqeeyay maxaa weeye maalinta soddonaad waa maxay column-ka magaciisa AF baa la yiraahdaa AF baa la yiraahdaa waxaan leenahay muxuu ka shaqeeyaa isagana sidoo kale 5 automatic lagu raadsaday yani row-ga column-ka ugu dambeeya qofkan xogtiisa ay ku jirta AF baa la yiraahdaa row-ga uu kaga sii jirana row 5 baa la yiraahdaa automatic asaga highlight gareystay raadsaday waxaan koma aan gelinayaa waxaan leeyahay waxa ii baartaa waa ii raadaysaa waxaan leeyahay inta uu shaqeeyo subax maxaan usoo qaadanay baan usoo qaadanay ama morning qoyska baan xirayaa marka inter baan leeyahay halkaa waxaa ku qoran inuu 4 maalmood shaqeeyay kuwa kale marka uma baahna shaqaalaha kale inaan qoro tartiibaan ugu soo jiidayaa automatically marka waan haystaa qof walba saacadaha uu shaqeeyay halkan waxaan ku haysanaa subaxii كيادو حالنا فيدك لا يقرأ في غفلان مش فيدك محل سوق يعني إيوان سوق يعني أوكي محل لنا عمل كواي هاي محل لنا سيدي أنت أي شيء فورمولا very important Excel فورمولا انتربل بولا إنا فانتد very important بدو البو حياة بغتا و very important وي مرت حد بانكو إلنا because Excel كانت professional كتاي وحا يكون سهل يساوي حوي database كلا إناد برتين ama xirfad kale u yeelatid maadaama formulooyin kala duwan oo malaayiin ay ku jiraan waxaan leeyahay waxaad ii raaysaa inta uu shaqeeyay shakhsiga jaamacada marka hore sameynana niri waxa weeye column-kiisii buu ahaa wuxuu kaga jiray number 5 wada aragtaan wuu qabsaday waxaan leenahay sidoo kale column-ka ugu dambeeya qofkan uu ku jiray row-ga kaga jiro waa row 5 asagaa soo aaday ilaa intaas dhan buu soo aaday because anaga amarnay waxaan leenahay waxaa ka raaysaa maxaa weeye evening intuu shaqeeyay waxaa weeye marka soo xiranaa qoyska qofka 3 buu ka shaqeeyay marka soo marka 3 inuu shaqeeyo aan hubina marka waa evening 2 ay haysaan 3 waad ii haysaan waa ka wax kale iyo kuma jiraan marka wuu saxayay dan marka hoogaa baan ku xusanaynaa bas waxaan tegnaa waxa la yiraahdaa habeen sidoo kale baan u raadinaynaa habeenkiina waan ka shaqeynay waan yara bobsiinaynaa okay
saacadaha habeenkii uu shaqeeyo qofkaas. Marka waxaan rabnaa inaan kusoo darno ogaano dhammaan inta saacada uu qofkan shaqeeyay automatic iyo inta maalmood oo uu fasax ah. waxaan leenahay dhammaan saacadaha waxaan leenahay dhammaan saacadaha. sidoo kale waxaan kusoo darsanaynaa waxa weeye maalmaha dhammaan maalmaha fasax. okay ayadana sidoo kale waan qoranay waan saf garaysanaynaa. waxaan raadinaynaa dhammaan saacadaha uu shaqeeyo qofkan. waxaan hadday halkan kusoo cadeynay waxaan kusoo cadeynay saacadaha shaqada inay yihiin 6 saacadood. waxaad ku dhufataa subaxii inta uu shaqeeyay, waxaad kusii dhufataa inta uu subax shaqeeyay, waxaad kusii dhufataa inta uu shaqeeyay habeen oo ah 12 saacadood. waxaan leedahay inter qofka marka wuxuu shaqeeyay 126 saacadood. kadib ku wada jiidaysaa dhammaantood. waa ka marka su-aasha isweydiintu mudan waxay tahay wax weeye asan garanaysa sidee qofkan 126 saacadood ku shaqeeyay. okay 126 saacadood ku shaqeeyay maadaama saacaduhu shaqeeyay aad u yaryihiin waxa weeye ambaarna marka aan raadino halkan waxaad ku aragtaan waxa weeye ama leaf ama air oo waxa weeye si fiican u bayaaniyo qofkan wuxuu ku maqnaa muddo 10 maalmood fasax muusan shaqeyn. sidoo kale waxa weeye maxay ahayd wuxuu sidoo kale uu fasax ahaa ama off uu ahaa 7 maalmood 17 beri qofkan ma uusan shaqo caadiya ma soo xaadirin ama qaybihi kala duwanaa oo hadday noqotay maxay subax hadday noqotay waqtiyada kala duwanaa ma soo xaadirin. okay halkan waxaan ku cadeynay saacadihii. sidoo kale waxa weeye waxaan rabnaa inaan soo saarna waxa weeye maalmihii ofta ahaa ama maalmihii qofkaas uu fasaxa ahaa. waxaan raadinaynaa qaayado aan soo qorayaa shaashadaan kusoo qorayaa. qofkan waxa weeye 7 beri wuxuu ahaa qofka off sida daa idin sheegay. waa ka 7 beri buu qofkan ahaa 2 iyo 2 waa 4 iyo 3daas. halkaas marka waxaan kusoo cadeynay waxa weeye sida loo qoro qofka maalmaha uu fasaxa uu ahaa ama ofta uu ahaa. kadib ayadani waxaan hagaajinayaa qurxinayaa. jadwalkeena very important very beautiful asagoo leh waxa weeye maxay ahayd informationkii loo baahnaa oo waxa weeye cadeynaya waxa weeye
shaqaalahan waqtiyada ay soo kala geli lahaayeen, saacadaha ay shaqeyn lahaayeen iyo saacadaha saxda oo qofka laga rabo maalintii. waxa weeye sida caadiga ah 24 saacadood inta uu ka shaqeyn lahaa. xuruufta waxaan usoo qaadanay mid walba xaraf walba waxa ula jeedna soo Soomaaliya soo Ingiriisha. waxaan u maleynayaa waxaan halkan ku sameynay inniina saad ugu jeedan jadwal aad u qurux badan kaasoo diyaar u ah in la daawaco oo lagu shaqo bilaabo. halkan waxaad ku barateen si loo soo saaro maalmaha ofta. hadda for example oo kale halkan waxaad ku barateen si loo saaro maalmaha ofta. okay, aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal. waxaan u maleynayaa inaad ka faa'iideen. waxaan idinka tegayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.